Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wuxuu ahaa ninkani taajirkii ugu weynaa dalka Yemen qarnigii tagay ee 20aad. Wuxuu ganacsigiisa ka soo bilaabay meel hoose oo eber ah. Wuxuuna soo maray marxalado badan oo kala duwan isla markaana aad u adag. Laakiin aakhirkii wuxuu noqday mid ka mid ah hantiilayaasha ugu hodansan dunida Carabta. Wuxuu dhashay taajirkan reer Yemen ee deeqsiga ahaa ee gacantana furnaa, isla markaan lagu magacaabi jiray Haa'il Saciid sanadkii 1902. Wuxuuna ku dhashay tuulo yar oo lagu magacaabo Qardi oo ka tirsan gobolka Ticsi oo dhaca waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Wuxuu Haa'il ka soo jeeday qoys aan xoolo lahayn oo aad fuqaro u ahaa. Xilligaasi dalka kama jirin waxbarasho nidaami ah oo la sheegi karo, waayo wuxuu dalka ku hoos jiray nidaamkii gumeysiga Ingiriiska. sidaas daraadeed Haa'il markii uu ka soo aflaxay dugsiga ama malcaamadda Qur'aanka Kariimka ma helin iskuul oo wax ka barto. dhanka kale haddii uu jiri lahaa iskuul, Haa'il kama mid noqdeen ardayda wax ka baranaysa, waayo waxay ahaayeen qoyskooda reer dhaqaalahooda uu aad u liito. haddaba Haa'il markii uu dhammeeyey waxbarashadii Qur'aanka Kariimka wuxuu noqday arjir ku wanaagsan raacidda riyaha. dhanka kale wuxuu caawin jiray aabihii kaa oo qodan jiray beeraha. markii uu qaan gaaray Haa'il wuxuu noqday dawaarle dharka tola. wuxuuna dharka u tali jiray dadka deegaankaasi ku noolaa. laakiin kolkii dambe Haa'il uu isaga soo tagay tuuladii yarayd ee uu ku noolaa, maadaama dhaqaalaheeda uu aad u liitay, shaqadeedana yarayd. wuxuuna Haa'il soo galay magaalada Cadan, kadibna wuxuu u soo gudbay dhanka bariga Afrika, gaar ahaan wuxuu tahriib ku soo galay dalkeena Soomaaliya asigoo shaqo raadis ah. markii uu anfici waayay dalkeena Soomaaliya, isla markaan uu ka waayay wax shaqo ah oo horumar leh, ayuu ka fekeray sidii uu ugu tagi lahaa guud ahaan bariga Afrika. wuxuuna kolkii dambe helay diyaarad u socotay dalka Faransiiska. diyaaraddii ayuu raacay, wuxuuna ka degay caasimadda Faransiiska ee Baaris. halkaas ayuu in muddo ah ka shaqaynayay shaqooyin hoose. kolkii dambe wuxuu helay shaqo dhanka badda ah oo wuxuu noqday baxaar mar walba dul saaran doon ama markab. Haa'il ayaa ka soo degay markabkii, wuxuuna ka mid noqday shaqaalo warshadeed. kolkii dambe wuu dallacay oo waxaa laga dhigay maamulaha warshadda. inta uu Haa'il shaqadani ku jiray ayuu kasbaday khibrad badan oo dhanka ganacsiga ah. sidaas daraaddeed wuxuu Haa'il markii dambe go'aansaday inuu ka tago shaqaalnimada, isla markaan uu noqdo ganacsade. haddaba Haa'il ayay anfici waysay joogitaankiisii qaaradda Yurub, gaar ahaan dalka Faransiiska. wuxuuna ku soo laabtay dalkeena Soomaaliya. wuxuuna ka bilaabay suuqa Soomaaliya ganacsi aan lacag iyo macaash badan lahayn, kaa oo ah iibinta haragga xoolaha. inta uu maqaarka ama haragga xoolaha ka soo aruuriyo kawaanleyda Soomaaliya ayuu u dhoofin jiray dalkiisa Yemen. Haa'il waa anfici waysay Soomaaliya, waayo waa nin meel u socdee, horeyna ugu soo tagay dal warshad leh. wuxuu u wareegay dalkiisa hooyo ee Yemen, gaar ahaan wuxuu degay magaalada Cadan oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka, isla markaana leh dekad weyn oo caalami ah. xilligaasi magaalada waxay ahayd magaalo ganacsi, waayo Ingiriiska ayaa gacanta ku hayay dekadaha dalka, oo ganacsigiisa u socda ama ka imaanaya dalweynaha Hindiya ayaa halkaani marayay. Haa'ilna wuxuu ka furtay bartamaha magaalada dukaan yar, kaa oo lagu iibiyo dharka iyo cuntada. Haa'il ayaa ahaa nin naxariis badan oo deeqsi ah. kolkii uu furtay dukaankii yaraa ayuu qorsheeyey inuu maalin walba bixiyo sadaqo joogto ah, oo wuxuu qayb ka mid ah qarashaadka maalinlaha ah ee soo gala u qoondeeyey inuu siiyo masaakiinta tirada badan ee ku nool magaalada, waayo wuxuu ahaa Haa'il nin jecel khayrka iyo samafalka. sidaas daraaddeed Haa'il ayaa abaalmarin weyn ka helay dhanka Allah subxaanahu wa tacaala, oo waxaa jeclaaday dadweynihii magaalada. wuxuuna helay macaamiil tiro badan oo wax ka iibsata. muddo yar oo aad u kooban ayuu Haa'il ku kasbaday macaamiil badan, kadibna wuxuu aasaasay shirkad ganacsi oo magaciisa wadata, taa oo markii dambe ballaaratay oo gudaha dalka Yemen ku fiday. Haa'il ayaa sidan hore u sheegayba ka ganacsan jiray dharka iyo cuntada, wuxuuna badeecadiisa u iibgeyn jiray dibadda sida dalalka Carabta ee deriska la ah dalkiisa Yemen iyo waddamada dhaca bariga Afrika oo Soomaaliya ugu horreyso. haddaba ganacsigii Haa'il wuxuu sababay inay dhalinyaro badan oo baagamuuddo ah shaqo mushaar fiican leh ka helaan shirkadaha Haa'il. dhanka kale Haa'il ayaa ka qayb qaatay horumarinta waddankiisa, gaar ahaan dhanka ganacsiga. xilligaasi waxaa dalka Yemen laga abuuray shirkado yaryar oo soo saara badeecooyin kala duwan. waddanka dhaqaalihiisa ayaa maalinta ka dambaysa kor u sii kacayay.
haddaba Haayil ayaa sii hormariyey dalkiisa wuxuuna furay sanadkii 1970kii mashruucyo ganacsi oo waaweyn oo dadka anfacay wuxuuna sameeyey warshado wax soo saarkooda fiican yahay inta badan ganacsatadii bariga Afrika iyo kuwii Carabta ayaa Haayil ku soo xirmay oo hawshiisa ganacsi ayaa meel walba gaartay wuxuuna noqday nin ganacsado ah oo bariga Afrika iyo dunida Carabtaba caan ka ah inkastoo Haayil aad ugu mashquulsanaa beec mushtarkiisa haddana ma ahayn qof hilmaamsan faqriga iyo gaajada haysata dadkiisa si uu dalkiisa ugu saaro jahliga iyo gaajada ayuu Haayil dhisay iskuulo carruurta wax lagu baro masaajido lagu cibaadaysto iyo jaamacado waxbarashadooda fiican tahay wuxuu kaloo sameeyey inuu dibadda ardayda garaadkooda sarreeyo u diray si ay jaamacadaha dunida horumartay culuum ugu soo qaadaan sidoo kale wuxuu maalgelin ballaaran ku sameeyey xarumaha cilmi-baarista ee dalka Haayil ayaa sidoo kale bukaanada dalka gudihiisa wax looga qaban waayo u diri jiray dibadda dhanka kale kolkii dambe wuxuu dhisay isbitaallo waaweyn oo wuxuu dibadda ka keenay dhaqaatiir aad wax u baratay kuwii gudahana wuxuu ku dhahay la shaqeeya dhaqaatiirtan oo aniga u weydiiya mushaarkiina Haayil intaasi kuma istaagin ee wuxuu sameeyey jimciyad qayri ah oo dadka liita samafal u samaysa dhammaan shaqooyinkaasi culus isla markaana aad ku ballaaran asiga ayaa kor kala socon jiray wuxuuna ahaa nin madaalo ah oo soo jeeda haddaba gabagabadii geeri meel loo dhaafo ma jirto Haayil oo ka soo laabtay cimrada ayaa sanadkii 1990kii Allah oofsaday halkaasi ayay ku soo afjarantay taariikh nololeedkii Haayil carruurtiisa ayaa halkii ka sii waday samafalkii aabbahood laakiin way gaari waayeen meeshii uu aabbahood gaaray meel ka sii fog